Cano wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastood joogtaanba kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii falaqaynta qodobadan kusoo qaadanayno waxaa ka mida suldaan wabar oo maanta si ballaadho lagu soo dhoweeyey magaalada boorama iyadoo oo suldaanku muddo dhowr iyo 10 sannadooda uu ka maqnaa gobolkaasi awdal iyo magaalada booramaba waxaana hadda u noqday suldaan wabar mid hordhac u noqday in markaasi wixii salaadiin ama madax dhaqameed ama yacni hogaamiyaal kale ah ee ka soo horjeeda jamhuuriyadda Soomaaliland lana dagaalamayay kuwaasi hadda soo guriya noqonaya waxaa kale oo hadda wararka soo baxay ay shaaca ka qaadayaan garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo Cabdirasaaq Khaliif oo markaasi ah iyaguna madaxda dhinaca iyo bariga sool kuwaasi oo soo guriya noqonaya wadahadallada ka socda dalkaasi Itoobiya magaalada Addis Ababa oo markaasi hadda la sheegay inay Somaliland madaxdeeda iyo markaasi nimankaasi sool bari ka socda ay hadda halka wadahadallo uga socdaan kaasi oo hadda ay ku soo laaban doonaan isla caasimadda Hargeysa iyo weliba gobolka sool iyo nidaamkii markaasi jamhuuriyadda Somaliland iyo dhinaca kale waxaa hadda iyaduna soo baxaysa in horjoogaha gobolka sool bari kooxihii huwanta iyo markaasi dowladda fadhiidka ay dhigatay waa firdhiye oo dil toogasho ah markaasi amar soo saaray in la dilo cid kasta waxa uu yidhi markaa Somaliland u tagta isagoo u duur xulaya garaadkiisa iyo markaa iraadeerkii Cabdirasaaq Khaliif kaasi oo markaa hadda uu toogasho ugu hanjabayo dhinaca kale waxaa hadda iyaduna markaa wafdi culus oo ka socda Somaliland ay tageen dalkaasi Israa'iil wafdigaasi ayaa waxay yihiin wafdi hordhac ah oo sii gogol xaadaya booqashada ballaadhan ee markaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Cirro uu ku tagi doono dalkaasi Israa'iil wiiga soo socda waxaana hadda la sheegay in ay sida oo kale ku soo beegantay wafdigan hordhacahay iyadoo oo dagaal uu ka dhacay xalay ilaa saakana ay markaasi dagaalamayeen wadamada Iiraan iyo Israa'iil kuwaasi oo markaasi xitaa xuutiyiinta iyo markaa kuwa kale ee gacan saarka la leh Iiraan ay markaa Israa'iil gantaalo ku rideen Israa'iilna ay ka jawaabtay waxaana hadda sida oo kale la sheegay in madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Mr. Trump uu soo saaray markaasi amar uu ku bixiyay in dagaalkaasi degdeg loo joojiyo kadibna Iiraan waxay soo saartay oo ay ku dhawaaqday baaq ay sheegtay in dagaalkii joojisay Israa'iilna sidoo kale amarkaasi ayay qaadatay Trump ayaa la sheegay inuu ka odeeyay arrintaasi haddaba wafdiga Somaliland madaxdeeda ayaa sidoo kale dhacdadan ay ku soo beegantay iyadoo markaa ay la sheegay maanta wafdiga hordhacay inay baxeen dhinaca kale waxaa iyaguna markaasi hadda kulan yeeshay oo cabaadkii ugu weynaa uu ka soo yeedhay dhinaca iyo masaarida madaxweynaha dalkaasi Masar Sisi iyo markaasi dhigiisa Eritrea Fawerki ayaa la sheegay in ay kulmeen iyaga oo markaa ka cabaadaya oo sida fiinta uga sii qayliyay iyagoo sheegay in Itoobiya hadda ay badda cagaha la soo galayso oo markaa Somaliland iyo Itoobiya heshiiskoodii hadda dib loo bilaabay oo la dhamaystirayo kaasi oo ogolanaya marinbadeed in ay hesho markaasi Itoobiya haddaba fadhiga ama baaqa ay yeesheen Eritrea iyo Masar madaxdoodu ayaa waxaa lagu sheegay markaasi inay yeeleen oo ay ka dagaalamay doonaan qodobada iyo qodobo kale ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhawaada وهاجا ku bilowno barnaamijke suldaan wabar ayaa waxaa si weyn loogu soo dhoweeyay gobolkaasi awdal magaalada madaxiisa boorama iyadoo oo suldaanka la sheegay markaa inay reer boorama si qiiraysan ay halkaasi ugu soo dhoweeyeen waxaana la sheegay tan inay qayb ka tahay qorshe ay xukuumadda Somaliland dejisay cid kasta oo markaasi Somaliland dibadda uga maqnay in dib loogu soo celiyo dalka iyadoo oo wixii ay tabanayaan markaasi gudaha loogu dhamayn doono ayaa la yiri muddo bil ku dhow ayuu markaa suldaanku joogay Hargeysa oo markaasi halkaasi kulamo badan u la yeeshay madax dhaqameedyada kala duwan ee markaa
beelaha kale Somaliland iyadoo gaadhigii ugu qaalisanaa la sheegay beesha Subeer Awal inay siisay oo markaa hadiyadaha halka lagu guddoonsiyay ka mid ahayd. Suldaanka ayaa haddaba maanta magaaladiisii dib ugu laabtay, waxaana haddaba dhinaca kale la sheegay in ay soo socdaan jaamac Garaac Ismaaciil iyo markaa Cabdirasaaq Khaliif iyo sidoo oo kale Xagile Toosiye iyo ninkii Ataash la odhan jiray. waxaana gruubkaasi la sheegaya hadda wadahadal inuu ka socdo caasimadda Itoobiya Addis Ababa, waxaana halkaasi la sheegay in inay kulan fooda isku dareen madaxda Somaliland iyo markaasi madax dhaqameedkaasi. haddaba shuruudo adag ayay iyaga laftirkooda hadda ay soo dhigeen miiska, taasi oo dee wixii yacni la siinayo in loo sii magacaabo ay ka mid tahay, sidoo kale xilal iyo waxyaabahaasina hadda ay doonayaan. haddaba si kasta ha ahaatee qorshahan ayaa waxaa sidoo kale ka dhawaajiyey markii uu Suldaan Wabar imanayay in ay markaa madaxdaasina wada hadal u socdo. hore ayaa laynoogu sii sheegay oo wasiirka madaxtooyada Qatar ayaa maalintaasi ka dhawaaqay goob fagaara. haddaba xogo kale ayaa sheegaya wada hadalladaasi inay bilaabmeen oo markaasi maanta iska gebagaba yihiin, oo la arki doono maalin dhow inuu markaa wafdi ballaaran oo ka socdo markaa nimankii Sool Bari ay iman doonaan madaxdooda caasimadda Somaliland Hargeysa, halkaasi oo markaa qaabilaad ballaaran loogu samayn doono ayaa la yidhi. haddaba Firdhiye ayaa warqad soo saaray oo yidhi madaxa laga toogto buu yidhi cid kasta oo markaasi Somaliland tagta, kaasi oo sheegay in markaa uu isagu dilkiisa xalaaleeyey. hogaamiyaha kooxaha argagixisada ayaa waxa uu sheegay markaa inaanay aqbalaynin markaa cid Somaliland dib ugu laabata. si kasta ha ahaatee waxa uu yahay markaa Firdhiye mid aan markaa meel dee garaadkiisu maray iyo markaa dee guddoomiyihiisii. ila Firdhiye xitaa muu ahayn nin xoolo iyo maal iyo dee dagaalkii markaa laascaanood gashaday. xaggan ka ognahayna Khalifiino isagoo guddoomiyihii ugu sarreeyey ee baarlamaanka Somaliland, madaxii saddexaad ee dalkana ahaa, inuu xilka iskaga casilay. xitaa intii xilka hayayna wuxuu maal iyo mood hayay dagaalka laascaanood u geliyey oo markaa uu ku garab istaagay kooxyaalka ka dagaalamayay waqtiga xukuumaddii madaxweyne Biixi dagaalka kula jiray. haddaba Cabdirasaaq Khaliif oo la ogyahay markaa waxaa qarashii hawl galay ayaa wejigabax kala kulmay meeshii uu markaa u dagaalamayay, kaasi oo gebi ahaanba ay xitaa maamulkii yara u quuri waayeen inay yidhaahdaan balkaalay madax uga noqo. ninkii dhammaayay guddoomiyaha ama madaxa saddexaad ee dalka Somaliland ahaa ee xilkaasi iyaga dartood u tiriyey ayaa ay markaa xaar ugu foodhaqeen oo ka dhigeen inay markaa yidhaahdaan halkaa ka bax laguma dooranayo. Firdhiye oo xawaalada amal fadhiyi jiray ayaa la sheegay waqtigaa inay ka doorbideen oo yidhaahdeen kan ayaa kaaga dhow ictisaamnimada bay yidhaahdeen, oo markaa wax lagu aaminaya iyagoo ku eedeynaya waqtigaasi in uu yacni Somaliland isagoo wasiir ka soo maray oo madax badan yani xilal badan soo qabtay oo mar walba la dhaarin jiray oo uu dhaaran jiray oo dee soo xilkaaga daacad iyo dalkaaga daacad uma tihid kitaabka ku dhaaran jiray. haddana wuxuu sheegay weligay maan aaminin Somaliland buu yidhi, taasi oo dhaartiisii uu dhaaran jiray la isweydiiyey oo talo haddana muxuu ku dhaaran jiray. calaa kulli xaal dad badan ayaa ku eedeeyey markaa sababta u dooran waayeenba nimankaasi huwantaahi inay ahayd inay yidhaahdeen meel kale ayuu ina geyn doonaa iyo waxyaabo noocaas, ama dee ma aamini karno ninka meeshii usoo dhaartayba kasoo cararay bay yidhahdeen. calaa kulli xaal abaalkii waqtigaa u galay wuxuu noqday markaasi mid ay gudi waayeen, taasi ayaana keentay meesha inuu iskaga xabaan gurtay isagii Ataashba. sida oo kale markaa jaamac Garaac Ismaaciil oo xamar jooga ayaa la sheegay inuu meeshiina arkay in lagu kala yaacay oo meel uu sii jooga aanay jirin, waxaana sidoo kale dhiirigelisay baa la yidhi. calaa kulli xaal wixii dhacayba ha dhacaan in hadda bej cusub la furo oo markaa uu Somaliland dib ugu soo laabto. Suldaan Wabar soo dhaweyntii ay u samaysay Somaliland in markaasi iyagana ay soo jiidatay oo hadda ay u arkeen inay dalkoogii ugu soo noqdaan oo ay markaa dalkooga daacad u noqdaan in ay hadda xaqiiqdii soo ogaadeen oo taasi ay hadda doorteen. waa hagaag dhinaca kale wafdi ballaaran oo ka socda Somaliland ayaa iyaguna hadda ka degay Tel Aviv, waxaana hadda la filayaa wafdigan oo ah wafdi hordhac ah oo markaa usii gogol xaaraya baa la yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo tegaya dalkaasi Israa'iil wiiga dambe. inkasta oo iyadoo oo shalay warkaasi soo baxay xalay dagaal bilaabmay oo Iiraan iyo Israa'iil dagaal xooggan ay isku bilaabeen, haddana dagaalkii hadda dib ayaa u istaagay. Trump ayaa amar degdeg ah soo saaray waxaana uu yidhi dagaalka waa la joojiyay, amarkiina waa la qaatay, haddana waa nabad.